Assalaamu calaykum. Waxaan kuu diyaarinay buuggii aad kaga faa'iidaysan lahayd bisha barakaysan ee Ramadaan. مرحب مرحب يا هلال أهلا Sida aynu ognahay, bisha Ramadaan waa mid ka mid ah bilaha ugu fadliga badan sanadka. Waa fursad gaaban oo qaali ah taas oo ay tahay inaynu uga faa'iidaysano sida ugu wanaagsan. Acmaasha la qabto bisha Ramadaan waa ay ka ajir badan tahay bilaha kale. Sidaas awgeed waa markii aan iimaankeena xoojin lahayn, qulubteena hagaajin lahayn, waa kulkii aan ku dadaali lahayn taqwada, dhowaanshaha aan raadsan lahayn. Waa bishii qulubta ay ka nasan lahayd daalka adduunka iyo macaasida. Waa bishii qofka uu dareemi lahaa farxad iyo sacaado nololeed. Waa bishii ay ku bishaaraysan jireen dadkii wanaagsanaa marka ay bilato. Waa bil alle sharfay oo karaameeyay. Waa marti sanadkiiba hal mar timaada. Sidaas awgeed waxaan kuu diyaarinay buuggii aad kaga faa'iidaysan lahayd bishan barakaysan ee Ramadaan, kaas oo aan kugu qorsheynay kuwa ka mid ah acmaasha ugu fadliga badan oo ay tahay inuu qofka muslimka ah si maalinle ah u qabto. Waa buug ka kooban ku dhowaad 70 beej, kaas oo kaliya aad adeegsan kartid inta lagu guda jiro bishan barakaysan. Haddii aynu isla fiirino qaybta ugu muhiimsan ee buugga, taas oo ah qorshayaal aan kugu diyaarinay buugga, waxaana ay kala yihiin sida inaad salaadaha waqtigooda aad ku tukato, kadibna tig ama sax aad saaratid, aadna raacisid sunnooyinka rawaatibta, kuwaas oo raaca salaadaha faradka oo kala ah 2 ragcadood oo salaada subax ka horeeya iyo 4 ragcadood oo duhur ka horeeya, 2 ragcadood oo duhur ka dambeeya, 2 ragcadood oo maghrib ka dambeeya, iyo 2 ragcadood oo cisho ka dambeeya. Sidoo kalena kama marna salaatuleylka iyo taraxwiida, adigoo si maalinle iskula xisaabtamaya naftaada lana soconaya sida aad uga faa'iidaysanayso bishan. Qaybta kale ee buuggu ka kooban yahay waa quraan akhris, adigoo sax saaranaya inta juz aad akhrisay. Qaybta saddexaad ee buugga uu ka kooban yahay waa xuska Alleh, iyo qaybta ugu dambaysa oo ah akhrinta adkaaru sabaax wal masaa. Haddaba buuggan aad ay u fudud yahay fahankiisa iyo isticmaalkiisaba, hase ahaatee faa'iidadiisa ayaanay jirin wax loo dhiga. Waxaa xusid mudan in buuggan aad ku heli kartid qaab PDF ah, adigoo awood u yeelanaya inaad ka soo dacwaato madbacadda ku dhow, annaga oo aan kaa siinayna qiimo aad u jaban. Hadafkeenu ma aha lacag iyo wax la mid ah, hase ahaatee waxaanu doonaynaa inaynu bishan nagu dhaafin ciyaar iyo wixii la mid ah. Ogowna, bishan waa hadiyad xagga Rabbi nooga timid, waana qofkii garta wanaageeda kana faa'iidaysta. Nasiib xuma qofkii Ramadaan dhaafta isagoo aan xagga aakhiro wax ku darsan. يجمعنا لأن رمضان يجمعنا